هلا فريستو عسكرتوا هاتشوجيسو سودا وحرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد. dhammaan madaxda xisbiga wadani madaxda qarankee kala duwan hay'adaha madaxa bannaan marti sharafta kala duwan guda iyo dibadba waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay sida qiimaha badan ee shirkan golaha dhexe loo soo agaasimay. waxaan ka mahad celinayaa soo dhowaynta qiimaha badan ee ilaa iyo maalintii aannu xisbiga ku soo biiray ee la bahownay na lagu soo dhowaynayey. maaha qiimo aannu dadka dheer ahay ee waa sharaf iyo qiimayn aad noo samayseen. aad baa ugu mahadsantihiin. aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin sidaa noo qiimayseen oo noo sharafteen ayaannu idiin qiimaynaynaa, idiin sharfaynaa oo idinla shaqaynaynaa oo insha allahu tacaala uga midho dhalinaynaa himilada xisbiga ee halkan uu guddoomiyuhu ka akhriyey musharaxa madaxweynaha mustaqbalka biidni illaahi tacaala. waxaa muuqatay khudbaddii madaxweynaha mustaqbalka soo socda insha allahu tacaala ee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu halkan ka akhriyey oo ahayd ama soo bandhigaysay muxuu waddani doonayaa, muxuu soo kordhinayaa iyo waa maxay barnaamijkiisu. waxaa ka muuqatay dhiiranaan inay barnaamijkooda soo qadimaan iyadoo barnaamijkii xisbigii xukuumiga ee ruulin baadhiga ee dalka xukumayey ay hidin waayeen oo ay weli leeyihiin waa la qorayaa. waa waxaannu uga nimi iyadoo weli leeyahay waa la qorayaa inaad barnaamijkii xisbi mucaaradi badka soo dhigo oo ku dhiirado oo sharaxo waxay muujinaysaa kalsooniya dhiiranaan. annana waa waxaannu ku doorannay. waxa ay muujinaysaa guddoomiyuhu isagoaan xilkii madaxweyne loo dooran inuu isa soo taago oo u badheedho inuu guddoomiyaha bixiyo oo xilka uu joogo ka dego oo weliba la yimaado hal-abuur cusub la yimaado oo ku soo kordhiya siyaasadda somalilan. hannaanka iyo istarakjarka xisbiga in hannaan kale loo beddelo waana waxa ay ku tamariyaan xisbiyadu marba marka hannaanka maamul iyo istarakjarka la badbeddelo ee marba qaab iyo hannaan suurtogeliya inuu xisbigu laba kacleeyo oo uu yeesho maamul hufan iyo nidaam horumarsan. marka aad iyo aad baan ugu hambalyaynaya. intaa kadib waxaa markaan tilmaamayan leeyahay himilada dadka iminka sharaxan badankoodu waxay u badan yihiin himiladoodu waa kursiga. himilo ay xaqiijinayaan ma laha. himiladoodu waa kursiga un yahay gaadhsiiya. waxaannu leenahay himiladaa la soo bandhigay oo weliba aannu ku dari doonno contribution kalena oo wixii annaga iyagii yimi iyo inta kale ee reer somalilan ay ku dari doonaan. waxaan jecelahay halkan inaan kaga bushaareeyo guddoomiyaha xisbiga musharaxa madaxweynaha insha allahu tacaala mustaqbalka qodob aan isla waafaqnay oo hadda uu ii sheegay inaan dadka gaadhsiiyo oo ah beritoole barnaamijka xisbiga ma aha sheegisuun. waxa xisbigu ogol yahay in qof waliba uu ku soo daro ra'yigiisa iyo taladiisa. waxaanu casuubayaa beritoole xisbigu dadka aqoon-yahankaa jaamacadaha intan joogta golaha dhexe iyo xubnaha aktifiiska ah ee xisbigu inta dhammaantoodina yimaadaan iyo marta sharaftu. beritoole waa open for all. waxaa discussion laga geli doona ama dood iyo falanqayn laga gelin doonaa barnaamijkii xisbiga marka la barsangarayo la soo bandhigo kadib wixii contributiona ee aaraa ee talooyina xisbigu wuu soo dhowaynayaa. barnaamijkii xisbigana insha allahu tacaala waa lagu dari doonaa. sidoo kale barnaamijkaasoo faahfaahsan ayaa guddoomiyaha iyo banal beritoole waxa weeye hoggaamin doona
gudoomiyaha cusub ay iman doona insha allahu tacaala cabdilqaadir jirde cabdiqaadir ismaaciil jirde uu halkan ka sheegi doona oo ku hogaamin doona banalka noocaasa ee ka warrami doona barnaamijka inta aanan hadal kale u gelin haddana waxaan ku darayaa qodob kale oo gudoomiyuhu isagana ay faray inaan meesha ka sheego oo aan isla eegnay hadda oo ah adigaa ka shaqayn jiray xilliga aad madaxweynaha la shaqaynaysay iyo xukuumadda aad ka shaqaynaysay maxay naafada adaa ka shaqayn jiray kaga dhawaaqoo sheeg inaynu samaynayno ku darayno xisbiga garabka naafada dadka naafada ah in loo samayn doono garab loo magacaabo iyo xafiis u gaara oo la shaqeeya hadhowna suurtogeliya inuu daryeelkooda iyo taageeradooda iyo tiirsimadooda iyo dhismahooda iyo waxbaristooda uu dabageli doono insha allahu tacaala marka dawladda noqdo markaan leeyahay dadku himilo aan ahayn kursiga dad badan baan lahayn oo himiladoodu tahay kursiga waxa aan jecelahay inaan tuduc yaroo soo jireenka ama sooyaalka soomaalida yaro daliishado ninkii la odhan jiray ducaale dhagaxay ayaa waxa uu leeyahay toban hal baa dilay hal baa dilay hadal sii dheh baa dilay waa garanaysaan hambo sii hudh baa dilay hablonimaan ku toosayn oo casarkiis oo u hagoogta laba suuf oo casarkii isu humbula oo haasaawiyaa dilay geelana hud iyo gawraar ragga ku haya baa dilay looda nimanka hawdgeeya ku haraadshay baa dilay hilbahana buraanlaha iyo tugaha yaraa dilay maxaan uga jeedaa waxaan ku darayaa tudacaasaan in ku darsanaya aniguna siyaasadda waafaqsanoo aan leeyahay maanta waxaan ku darayaa siyaasadda nimaan himo lahayn waxa weeye been isku akhriyey hilaalkiisu dhow yahay oo kursiga u hamuun qaba himiladiisu keen tahay oo shilinka un ka halabsada hadafkiisu qole yahay oo haybhayb u kala gura oo lagu hobtay baa dilay haybhayb u kala gura oo lagu hobtay baa dilay waxaan leeyahay ninkii sharaxane doonaya inuu kursiga tago adigaan oo dhan reer hebel iyo reer hebel dooranaya hebel iyo hebel baa ii xidhan ninkii baanaayo lagu fasax badka soo dhig waxaad aaminsan tahay halka aad hayaanka aad bulshada geynayso badka soo dhig nagula tartan waxaan arkayey madaxda kulmiye oo maalmo dhowayto ismarmarinaysay wixii annagu aanu qabannay xaasha ma dafirayno madaxweynaha qaranka oo ah kaannu la shaqaynay kii himilada lahaa laakiinse annaguna maxaannu lahayn hirgelintaannu lahayn dadkii hirgeliyey baannu ahayn qaar aan hirgelin qaar maalin walba lugta qaban jiray oo aannu ka weynay kelmad u dhah waddooyinka kelmad ayaan arkay iyagoo leh waddooyinkaa kulmiye qabtay oo doonaya inuu kulmiye isku duuduubo kulmiyaha uu isku duuduubayaa ku jira raggii shaqaynayey buu isleeyahay kulmiye ku duuduub waayo isaga maadaama aan raadkiisa lahayn waxaannu leenahay tartan hufaanaan ceeb iyo cay lahayn oo waxaannu qabannaya baannu soo bandhigaynaa cidna u faani mayno laakiinse waxaa nugu filan madaxweynihii himilada lahaa mooyaane iyo asxaabtayada saaxiibbadayda imkaba dawladda ku jira oo xaasha aanaan dafirayn wiilasha iyo gabdhaha qaaliga aannu wada shaqayn jirray ee himilada fulinteeda gacanta nala hayey ma dafiri doonno dadkii wax qabanayey laakiinse waxaannu sheeganaynaa min saylac 23 degmo ilaa iyo laasqoray degmo aanan istaagin oo mashruuc ka fulin ama ka furin oo aan ahayn laasqoray iyo meesha la yidhaahdo badhan iyo buuhoodla hareerihiisa waa ka fuliyey laakiinse gudihiisa ma jirto waar taasaannu ku tartamaynaa qoladanna ula nimid oo ku biirinaynaa xaasha taayadii inaad sheegato wax la kaalay bulshada wax u soo bandhig waxaad qabanaysa keen taariikh aad leedahay keen taa waannu kula leennahay ninkii soomaaliyeed wuxuu yidhi geel waa kaayagee haladhe buu yidhi geel waa kay geel annagaa lehe
haladhe waxaagu waa halee war waxaad leedahay adigu hala yar sheego geel waa kaayagee horumar waa kaanu qabannaye haddaad soo qadimayso saaxiibbadeedii kubadda aanu isku tiimka ahayn cayaartaba waa isla garaynaa mushkilad maaha laakiinse nin cidla iska fadhiyey nimaan waxba qabanoo hagardaamo u geysta mooyaane aan weli tallaabo qaadin inuu bulshada ku khiyaameeyo ama ku sukhro oo yaa kulmiye haddaannaga waxaasaannu qabannay annagaa kula cayaarayna maantaoo annaga ayaa kula cayaarayna kuwii waxaa qabtaya waddooyinkaan gacanta ku hayay ee ilaahay khayr ha siiye himiladii madaxweynaha ka mid ahayd ee aan hirgelinaynin laga soo bilaabo waddadii boorame waxay himiladu ahayd aannu xilligaa wadnay kaa aragtayna qoran maaha qarsoodi ee ahayd somalilan road network oo ahayd in gobollada dalka la ysku xidho ma aha maantaan anigoo mucaarada ama anigoo xisbi codu doonaya ku faanaya shalay baan anigoo xil haya sheegayey oo ballaan qaadayey tii baan maantana qoladan ku biirinaya oo isla daba taagaya oo ku raacsanaya inay ka shaqeeyaan oo ahayd maxay 6 gobol dalka in la isku xidho 6 gobol dalka waxa boorama way dhamaatay ceerigaabana way socotaa labadaasuunbaa ka go'naa xidhiidhkii laamiga inay laami wada noqdaan ceerigaaba way socotaa waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaya howlwadeennada shaqaalaha ee waddooyinka ka shaqaynaya ee aan kaga tegey ee ka shaqaynaya sida hagarla uga shaqaynaya ayaan aad u ballan qaadaya qolada maamulka joogtay ee wasaaradahana waxaan leeyahay kuwa hagar la'aada iyagaaba shaqada qabane waxaannu ka tegey shaqo wadda haysata oo ah maxay 2 markaboo daamurka u yaallo road materialka bannaanka laga keena waa daamurka waddooyinka 2 markaboo daamura oo 54,000 oo foosto ama barmiil oo yaalla waxaannu kaga tagay maxay waddadoo 150 ilaa 160 waxna laamiyey waxna uu carreeyey waxaan arkayey rag ku faanayoo leh intaasaannu laami ka dhignay waa waddadii anigu aan ka tegey intaan iyadoo ciiddii iyo dhagixii iyo jaygii saaran yahay daamurkiina dul yaallo gaadiidkiina dul fadhiyo aan kaga tegey baan arkayo faan ka dhiganaya waxaanse aanay dafirayn taariikhdu qarin mayso ilaahayna qadin maayo waa sumad ilaahayna qadin maayo waxaannu qabannay dadkaas reer somalilanna na dafiri maayaan haddaad adiguna dafirto xaasha waannu helaynaa dadka yagaannu ka helaynaa waxaan leeyahay kuwa isku daalinaya laaluushka waar quluubta dadka laaluushku ma soo dumo ma kasbado ma aha laaluushya lacag la qaybiyaa dadka ma soo dunto xaasha dadka qalbigooda waxaa soo duma cadaaladda wanaagga waxqabadka akhlaaqda suuban iyo ilaalinta dhaqanka iyo sariigta waxay muuqatay dad lacag la yaacay oo roordayo gabgable oo isbahaysigii baa jawigii bedelay oo siyaasaddii baa xaraaradii waar shalayna xirsi baan ahaa markan joogayo waa tii la hadal hayay maantana waan joogaayo way hadal hayn doontaan insha allahu tacaala guri walba kaambaynkaannu gelin doonnaa albaab walba waannu istaagi doonnaa waxaa fiican oo aannu tilmaamaynaa leenahay waxa fiican ciro waa kan in lagula tartamo maxay in gooda yar iyo gooda weyn iyo shiikh iyo berbera lagula tartamo muuse hadduu waxayo uu kaga badiyo faysal iyo jamaalkii waxayaa kaga badiyo oo uu gurigiisa kula tartamo xaasha ma aha dalka inaynu guriguri u qaybinno inaynu aagaag u qaybinno ma aha xaasha waxaan leeyahay waa in lagugula tartamaa nin walowba waxaannu kugula tartamaynaa gurigaagaannu kugula tartamaynaa waxaannu ku dadaalaynaa carruurta guriga joogtaa inay waddani u codayso insha allah waanaad arki doontaa ma aha lacag qaybin mayno dadku waxay doonayaan baannu soo bandhigaynaa oo ka shaqaynaynaa oo ka dhabaynaynaa maxaa la yidhaahdaa xadiiskii rasuulku wuxuu aha salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu aha maxay ina alkadiba rayba beentu waa shaki iyo wax ruuxmaya oo aan sal yaraa toona lahayn wa ina asidqa tamaaniin runtuna waxay leedahay xasilooni iyo kalsooni iyo xasilooni bay leedahay waxaan arkayay rag markiiba ruxmay
واردقال بولي اللي اسمه قارين يكامبين بفر اللي اسمه قارين سوديك عرورتي شوي وعن لا يهي وارحدا الله بلابا يوي بلابا انتهي وينو قرونكا عيب الآن إن أننا عيتمين أننا عدنا حقنين أننا عدنا أفلقادينين أننا ننكستو وحقبتي ننكستو وحمودن أن كدفرين كدفري ماينو حاشا موسى كدفري ماينو إنه مجاهد هذا الكوسو هالجمي لكنسي وعن لا نهي سجى رجع كلوسو هالجمي يعني كمدنا هاي وتاريخ ومد ولاده هاي كل شيء قدام بي أيا وقعده هالجنكا وفنا جارو شيئا مايو وفنا جارو قولين مايو سي فينا كون نقن ميسو وحقرن كقولي هاي وحلا جاي بينو قف قلت كفهمه وما هالجن كي ضلكا أيا ديارين سامايا هالجن كاين أدود ماتو أو داوعنتو أو ديدو ضلكا كقوله ما هو واحد سي في شيئا نيسو واحد ضد كجا شيئا نيسو وعد جارك كجا ليسو حق ملهي موادرين دستور كاتشيلي حقوق السمن بيكوليين مid soo halgamay iyo mid aan soo halgamin ka soo horjeeday xuquuq siman bay ku leeyihiin cadaaladda iyo dastuurka hortiisa marka gaar uma sheegan kartid war wax la kaalay bii waaye waxa yaagsan la kaalay dadka waxaad ka iibiso la kaalay si ma noqoto waan soo halgamay waa xuquuq dalku kugu leeyahay waad ku mahadsanayd lagaana dafiri maayo barito la hadaanu dalka qabanana waxaanu daryeeli doonaa oo ilaalin doona oo lagu taariikh fiican laga samayn doona oo la qori doona oo aan la dafirayn oo aanina laga yeelaynin hoos soo aqriyo taariikhda dalku lahaa ee halganka muuso maalinta laga dafiri maayo waa lagu daraya laakiin samaanta xog ku goynayso waxaan leeyahay reer wadani waxaan leeyahay hawl badan baa inoo taala tacab badan baa inoo yaala dadaal badan baa loo baahan yahay إن شاء الله تعالى وأقول سنينا هدينا دلال كذي كرتيدي لنمادنو أنت وحن مر والبكو علينا أنت شعل هذه الشهر عليه حقت أنت أما دليش لقى يا بيني كنت لحتك تو وحن لا دليش وحكفي عن وحقبت كي أهرو مركا برنامج يدا وحومضو بأنت هاي إنه وحينا وحيبينا وحقد غضنو وحكم مهمات بدن وحدتكو باهي هاي هلك دروشة سيدنو وقفين لهين سيدنو قرب قلي لهين آدي باو مهاتنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أين قدم